warbaahinta iyo baraha bulshada caalamka ayaa waxaa si aad u qabsaday loona hadal hayaa geerida lamaane isjeclaa oo wada noolaa muddo 17 sano ah isla markaana geeriyooday geeridooduna ay kala dambeysay muddo 12 saacadood oo qura. Jariidada Daily Mail ee ka soo baxda wadanka Ingiriiska ayaa sheegtay in Herbert Dragal ay haaskiisa isbarteen Marilyn Francis sanadkii 1947 maqaaxi ku taala magaalada Windsor ee gobolka Georgia halkaasi oo ay ka shaqeyn jirtay. Dragal oo waraysi laga qaaday sanadkii 2018 ayaa sheegay waan la socday dhaqdhaqaaqeeda sida ay u socoto marka ay maqaaxida u socoto ama ay ka soo hoyaadayso. Maalin ayaan isqasbay oo aan u bareeray inaan la hadlo waxaan weydiiyay inaan wada kulmi karno marka ay maqaaxida ka soo baxdo iyo in kale. Sanad kadibna waan isguursanay. Lamaanaha Dragal ayaa geeriyootay iyadoo ka tagtay 6 caruur ah iyo 25 qof oo ka farcantay isla markaana Jimcihii 12 Juulaay waa bishaan aynu ku guda jirnay ayay ku geeriyoodeen isbitaal ku yaala magaalada Windsor. Markii ugu horeysay waxaa geeriyooday Herbert oo 94 jir ahaa saacadu markay ahayd 2:20 daqiiqo oo habeenimo. Marilyn oo 88 jir ayaa dhimatay 12 saacadood kadib markii ninkeedu uu dhintay, waxaana la wada aasay Isniintii 15 Juulaay sanadkan 2019. Dalmar Cabduqaadir, barnaamijka Subax Wanaagsan, Goobjoog TV.